haddii aan u guda galno su-aashani saddexaad waxaa tahay qof socialist ah macallin dugsi quraan ah tiktoker ah 18 ilaa 20 dad ku dhow shacbiyad haysta waxaan ka warqabnaa socialka marba waxaan ka aragnaa dhiirigelintaada barnaamijta waxa wada oo la dhahay barnaamijka diinta islaamka dadka badanaa way ku yaqaanaan dad qaarna kuma yaqaanin yaa kugu dhiirigeliyay qofka ugu horeeyo ku dhaha barnaamijka hore uu mahadsan tahay Yaxye Yuusuf Xuseen Yaxyeena waxa waa sheekh aan ka daalin warwaad daali bis waan ku dhahayn waa xanuunsanaa ku dhahayn wajeebka kugu jira marka daalay baahi ay qabad ku dhihi maayo مشاركين بشي لعق مال يسار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي لك سو دواده ملك ادونك اك جوجتين وايحيهين كسو دواده مقال عصب مقال كان ما تبع كسابسن yahay صاحبada qaaliga soo jeedaan muuqaalkan muuqaaladii hore uu ku dub yahay soo jeedaan waxa la jooga Macallin Ciise Sudaysi YouTuber TikToker aan la jooga caan ah bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda caan ka ah waxaan rabaa caawinaan meeshan aan taariikh nololeedkiisa ku soo gudbiyo ustaad horta soo dhawow asxaabteedin ku soo dhawow team Yaxyeena maxaa leedahay Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة بدن وان كل وهي يحييهنا يوتيوب channelك يحييهنا وكل وهي سقاسنا وحنا السلام يا رمان أصحابتك وحرن channelك كحرن وان سلام يا سلامة إسلامك يا سلام يا مركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني ليه وانا كل وهي برنامجك يوتيوب channelك وكل وهي أستاذي تاريخ نولدك مع العيس وديسي هرت لم يقانا صح بل عاو حرب إن برو أن ما فهنسيو مع العيس وديسي قفوا وياي وهرين إن مجعي أبو حوا إن مع العيسى عبد الله مؤمن oo loo yaqaano Macallin Ciise Sudaysi oo kamid ah barayaasha iyo macallimiinta Soomaaliyeed kuna nool magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana ku dhashay gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Bongoriyo oo hoos tagto magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe taariikhda markay ahayd in 1985 oo la jeedo 1985 ayaan halkaas ku dhashay kadibna anoo aad u yar ayaan ka soo wareegay halkaas kuna soo wareegay magaalada caasimadda ee Muqdisho sanadka markuu ahaa in 1992 oo ah 1992 xilligii la oran jiray caga bararka waayahay su'aashii labaad ee saadi ku weydiina waxay tahay haddii qof uu ku yiraahdo Muqdisho caasimada Soomaaliya inaan imaado rabaa bal hal iyo laba wax iga dhex Muqdisho waa nooca maxaa oran leed waad mahadsantahay Yaxyeena Yaxye Yuusuf Xuseen magaalada Muqdisho waa halka hadda aan ku noolnahay aniga iyo adigaba aad iyo waayo qofkii ku yiraahdana magaalada Muqdisho ayaan rabaa inaan imaado ma lagu noolaan karaa jawaabtu waa haa li'anno hadana lagu noolaan karin aniga adigaba ma joogi lahayn laakiin asii qof garana ma meel adiga ku nooshaa marka ma dhihi kartid meel fiican ma ka joog ma dhiga waa ina marka waa dalaadan lahayn waa dareen ku joog dalkaada Soomaaliya wax ku dhaamo malaha waa caasimadda Soomaaliya Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya waxa weeye madax meel ka koreeyo oo la salaaxa ma jirto leeyahay madax meel ka koreeyo oo la salaaxa ma jirto li'anna waxa ula jeedaa Muqdisho xumaatay waa caasimadaha kale goboladooda oo xumaaday waa caasimadaha kale oo xumaaday ay la mid tahay sababtoo ah Muqdisho haday wanaagsan tahay inta kale way wanaagsan yihiin gobolada kale iyo caasimadaha kale maamul goboleedyada kale caasimadaha kale ila gobol wuxuu leeyahay magaalo madax tusaale bay caasimadiis waa Baydhabo Bakool caasimadiis waa Xudur Soomaa sida gobolka Banaadir caasimadiis waa Muqdisho Muqdisho waa marka waxa weeye waa kul misaal dhaha waxay kulmisay Soomaalida oo idil hal qabiil ma laha Muqdisho waxa weeye waxa leh Soomaali weyn oo dhan ayaa iska leh cid walba ku noolaan karto faqiir iyo taajir ayaa ku noolaan karo waxa ku noolaan karo qof u dhashay citizen ah iyo qof aan u dhalanin waa oo macnaa markaasi wadanka aan u dhalin hata ku noolaan kara Muqdisho cid walba ay soo dhaweysaa Muqdisho cid ka ma leh waa Muqdisho cid ka ma leh ayaan dhahaa macnaa maama hal ku dhigaas oo ah waa hal ku dhig aan dhahayo Muqdisho cid ka ma leh oo Muqdisho lama kala laha waxa ula jeedaa waa meel amni waa meel macnaha oo bulsho oo dad jecel iyo ummad dad jecel ay ku nool yihiin qof kasto oo yimaado oo nabad ku yimaado oo qalalaaso iyo dagaal aan oogeynin welcome ay leedahay Muqdisho haddii aan u guda galno su'aashani saddexaad waxaa tahay qof socialist ah macallin dugsi quraan ah
tiktoker ah 18 ilaa 20 dad ku dhow shacbiyad haysta waxaan ka warqabnaa in socialka marba waxaan ka aragnaa dhiirigelintaada barnaamijta waxa wada oo la dhahay barnaamijka diinta islaamka dadka badanaa way ku yaqaanaan dad qaarna kuma yaqaanin yaa kugu dhiirigeliyay qofka ugu horeeyo ku dhaha barnaamijka hore uu wato mahadsan tahay Yaxye Yuusuf Xuseen Yaxyeena su'aashaas jawaabteeda dal gaar rabaa adeeg kugu soo laabanaysa li'anno waxaad ogtahay weydiinin maxaa yeelay qofka sidiisa qof walba wuxuu leeyahay qof macnaha mustashaar ah ama qof oo macnaha ii sheeg oo dhiirigeliye ah aniga qofka kaliya macnaha the only person qofka kaliya ama الشخص الوحيد ay ugu dhiirigeliyay social media inaan ku soo biiro oo heerkan iyo mustawahan maanta aan ka joogo aan ka soo gaaro ilaahay ka soo bacda Allah ta'ala waa ninka lagu magacaabo ama walaalka lagu magacaabo Yaxye Yuusuf Xuseen oo loo yaqaan Yaxyeena oo asagana ah cameraman Soomaaliyeed isla markaasna ah YouTuber oo magaalada Muqdisho fadhigiisa uu yahay ninkaas ayaa ka dambeeyay inaan social media lugta la soo galo iminka waxaan ahay YouTuber waxaan ahay TikToker waxaan ahay Instagramer waxaan ahay mucaalij qof macnaha dadka Quraanka Kariimka dadka ku daweeyo intaas waxa isii dheer alxamdulillah wax lagu faano wax ugu fiican martabada lagu faano ama darajada ugu weyn ama ugu qaalisan darajada ugu weyn oo macnaha lagu faano oo ah inaan ahay macallin dugsi Quraan haddii aan ku weydiiyo su'aasheena xigta waagii hore macallimiinta dugsiga Quraanka waa taqaana macallimiinta ku soo bartay xitaa marka aragtiisa aragto waa laga dhumi jiray sax waa hadda adi heer waxaa gaarsiisan tahay inaad TikTok furato sax dad ku dhawaad ilaa 20,000 ah haysato wax u soo gudbiso sidee macquul noqotay niyo horta لحظة ماشي إسدكت لو جور عالي لحظة صح ماشي إسدكت يا لو بريا بمعنى وحن كودا قفل ماشي إسدقه أيوه في سنة يا صح أنا قدرت واكس بدي أرضه واكس بدي بلشده واكس بدي راني رضا واكس بدي أنا إسفارينين because وحوايا قفك السدو يهي لقد دي سأيال قولها الله صح أنا بلشده وحن كلها الله لقد يفهم يعني صح قفكي لقد وين كلها الله لقد ده وين كلها الله قفكي لقد يرير كلها الله سيدو كلام معناه حول جدا قفك معناها بأي طريقة قفك مركا داعيتها إلهي وحولي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة مركا داعيتها وحالو بها يددك إن ويرته وضد إلهي سبحانه وتعالى طريقي سإن ويرته سي حكمة أي كل هانتها يو وعدي وناكسن معها ضدك ما دام وقت كان عسري لوجره وحول بالتكنولوجيا أي هرمرتي وحوي waxaan jeclaystay marka dadyow fara badan iyo bulsho fara badan inaan macnaha aan dacwada gaarsiiyo anoo marsiinayo aaladaha social media qeybaheeda kala duwan anoo u marsiinayo ayaan u isticmaalaa dacwada faafinteeda iyo sheeg muxaadarooyinka iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee culumta diiniga waayahay macallimiinta kale ee dugsiyada Quraanka sidoo kale maxaa ku dhiirigelinaysaa ayagana maadaama aysan waxyaabahan qaar ay fahamsan yihiin qofkii furtay inuu fasahaad noqonaa ما يوحص قلد ويه dad qaar ay misan sida وحص قلد ويه قفك وحو اسك دغ وايه قفك وحو اسك دغ وايه كما تدين تدان قفك سيدو u dhaqmo ayaa loo dhaqmaa adiga adaa is wanaajin karo adaan is xumeyn karo inkastoo asbaab ay jirto lagu macnaha ay sheeg keeni karto arimahaas asbaab keeni karto inkastoo ay jiraan arimahaas marka macallimiinta oo asaagayga waxaan kula talin lahaa ama ku boorin lahaa ina ayagana insha Allah ta'ala fadhiga ay ka kacaan oo ayagana insha Allah ta'ala dariiqadan ama wadadan hormartay oo ah social media inay dacwada iyo diin islaamka ay ku gudbiyaan sida anigaba aan sameeyo ay iga daydaan ama aniga dariiqa aniga aan maray ay ila soo maraan maanta wixii oo dhan ay noqdeen boqolkiiba 90 social boqolkiiba dadkii oo dhan waxay soo aadeen social media xitaa haddii xayisiin noqoto ganacsada xitaa in wax lagu xayisiiyo taas waxay tusinaysaa horumarka la gaaray adduunka ayaa tilaabsaday biriga hore waxaan lama aqooni jirin علمي عريري أيو كجري جري هذا إيمنك وح لجوه تاع علمي جوابك يا لجوه تاع سببته فلاش أيو كجرا وحو كجرا إنترنت وكجرا علمي وحو كجرا ميموري أيو كجرا وحو كجرا لابتوب أيو كجرا وحو كجرا مال والبا أو مركزي أو تكنولوجيا أيا لجها ليا وحوا سفود هوين صقر حتى بس هوين ما 10 دقيقة سنكرتها وحوا شيق عن كدالين ورواد دالي بس وان كلهين وحنوسنا كلهين وجابك كجرا ما كدالي باهي قبت كلهم معي مشاركين بشي لعق مالية صار وحوي وحان السوشيال ميديا وحوي يو تكنولوجيا عصرية وأن مع إلهي سبحانه وتعالى نقوم نذيسته أو مركز مدن إن الله سبحانه وتعالى لقوم ما هاد عليه هذا هيرك وصومري دكسيد القرآن إن هذا الله على وصوغر صومري
in lagu qoro waraaqada sida book lagu qoro soo maray hadda wuxuu marayaa marka in computer iyo mobile oo database in la isticmaalo iyo masxaf dugsiga u yeela masxaf electronic ah oo macnaha la soo degsanayo oo mobilada taashka lagu shubanayo jeebku kugu jira markaad quraan u baahato in akhristo masxaf dhamar raadinaysid waa soo baxsan nimco waay alxamdulillah in la yiraahdo waa macnaha horumarada la gaaray ma garatay memory yariis ah oo farta afkeeda hore dhan oo cinjida macnaha fariireeda cinjideeda la eg oo memory la dhahayo ayaa macnaha waxa rabto quraanka intaasoo qaari ah ku shuban kartaa intaasoo sheekha ku shuban kartaa oo maqal iyo muuqaal ah markaas aad isha taleefkaada gashan kartaa aad ku dhageysan kartaa waa nimco ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu manadeysta su'aasheen xigtana ku weydiiyo waxay noqonaysaa ma xasuusataa ama muuqaalkii ugu horeeyay aad samayso ama aad duubto aad soo publish garayso muuqaalkii ugu horeeyay ma xasuustaa haniyo TikTok ha noqoto Instagram ha noqoto YouTube ha noqoto muuqaalkii ugu horeeyay oo aan YouTube soo geliyo ama social media aan soo geliyo wuxuu ahaa ilaahay afkeed baan ka dhowr muuqaalka hadlayay malaa'ikta sidaas aan jeclahay malaa'ikta ayuu ka hadlayay malaa'ikta ayuu ku saabsanaa macnaha malaa'ikta kuwa 10ka malag oo 10ka malag malag walba iyo wuxuu macnaha qaabilsan yahay wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu wakiishay ama uu xil saaray malag walba 10ka malag iyo malag walba shaqada loo xil saaray ayuu ka hadlay waayahay muuqaaladaada idil muuqaalkaad ugu jeceshahay niyo ma su'aashaas waxa weeye waa ka gaabsanayo waayo macnaha muuqaaladeyda kalama liitaa muuqaal ku soo jiito adi ahaan ku cishito muuqaaladeyda waa kala daran yihiin ma jira muuqaaladeyda waa kala daran yihiin muuqaal quraan ku jiro muuqaal quraan saara ku jiro muuqaal kale waxaa ku jiro muxaadarooyin ah waxaa ku jiro muuqaalo kale oo su'aalo iyo jawaabo diini ah laakiin hadda ma jiro muuqaal qaas adiga ku qancay ma jiro ku cishito ma waa badihiin waxa ugu badan muuqaalada su'aalaha iyo jawaabaha oo diiniga ah oo barnaamijka ifiyaha diinta islaamka kaasa kamid ah waxa kamid ah quraanka aan soo geliyay quraanka aan duubay oo asagana qaybo kala duwan leh aadiya kooxaha kubadda cagta كل برنامج كاس عمل اسبورتسكا ما دام اتاي سوشياليست تيك توكر اتاي dadka macallimiinta kale wax isdhaha kara xitaa waa ka horeysa sax macallimiinta qaar adig kulmid maaha qaar waa kulmid qaar waa ka horeysa marka xagga kubadda cagta kooxda taageerta taa in kuwa muqdisho noqdaan kuwa gobolada ha noqdaan kuwa oo carabta ha noqdaan waad mahadsan tahay horta qofka wuxuu yaqaan ayuu taageeraa sax wuxuu yaqaan oo cilmi uu leeyahay sax ayuu dhihi karaa waan jeclaa waan necbaa أنا كبدي أنا مسجل نبو أنا كبد مس داخل نبو مسجل كمل داري وحنا وجيدي وح بوفن أو لهرانتنا وجيدي ما دام مركب بوفن لهرانتنا مركب كل ما أقان كوح يوالو ديلا وجيد دار كل الدوم الجود ديلا وجيدي لكن ما ديه كرو كوح بلاي تاجر ما ديه كرو سببته أقول أمله كلنا ما نتاجر سني كل ضد كنا كوميدي رجلي يعني لكن وحي ديلا يجي وطلع وياهي إن سؤال شيء نحكي كويدنا وحيتها هدي قف أنتو كعزومو أنت تجعل له إنه هو عزوم أم راشينك أد تجعش إنه هو عزوم نيو راشين كستو أو إلهي سبحانه وتعالى حلالي وجعل إنه هو عزوم لكن راشين خاص أجعشها مجرى ما راشين كده واسكوي مد أنيجا واسكوي مد أنت بدن راشين كستو حلال أو إن كستو وحنجعل هاي دلقة دول كأنه إن راشين كبحة كسوقة واسعد وجعلها إنه هو عزومه تصال أهان canjeera ama iyo muufo laga sameeyay dalaga dhulkeena sida galeyda ama masagada ama qamadiga raashinka dalkeena ka soo go'o raashinka laga sameeyay ayaan jeclahay horta inuu casuumo hilibkan waxaan u jeclahay hilibka ari cadka ayaan ugu jeclahay dhanka shay cabitaanada qudaarta laga shiiday ayaan jeclahay sida furlaatada iyo mushakalka oo kale ayaan aad u jeclahay fruitska vegetable fruitska cabitaanka laga diyaariyay ayaan aad u jeclahay okay su'aashana xigta ku weydiina waxay tahay kalarka dharka midabka aan ugu jeclahay dharka xagiisa waa midabka cadaanka loo yaqaan white cadka midabka cadaanka ayaan aad u jeclahay okay su'aashana ku weydiina qof walba qosaysa xitaa ari waa soo maray iskoolka waaga dhigin jirtay maadada uu nacbaa waa maadada loo yaqaano maathka ama mathematics si loo yaqaan ama xisaabta ama riyaadiyadka maadadaas xisaabta ayaan aad iyo aad macnaha u dhibsan jiray ayadii macalinkeeda uma jecleen macalinkeeda markuu soo galo beerka ayaa hor jiray halkaas aan ka nixi jiray macnaha ma jeclaan jiray macalinkaas waxa jeclaan jiray isla markiiba xiisadiisa inay dhamaataan jeclaan jiray sababtaas waxa keenaysa kuma fiicneen waxaan ku fiicnaay maadooyinka diiniga ah oo carabi ku baxsiba
maadada tarbiyada islaamiga iyo waliba luqadda carabiga ama dhammaan maadooyinka luqadda carabiga ku baxa ayaan aad u jeclaa haddii lagu dhaha ticket free ayaan ku haynaa caaw waddankee jeclaan lahayd inaad ka degto taas dalka iyo dibadda taas raadin maayo horta jawaabtaas baadigoobkeeda waxaa waaye meel dhan laga raadin maayo haa waayahay shaashad ahaan horteeda ugu soo muuqda waddanka khadar ayaan jeclaan lahaa khadar aad u jeceshaha si dirita ah oo macnaha taasna waxaan u danaynayaa waa waddan oo muslim ah waa waddan carabeed alkhaliij alcarabi ayuu ku yaalaa marka saa darteed marka waxaa kaloo meesha ku nool quraa qaari'iin dad macnaha qur'aanka aad u akhriyo xufaad ayaa meesha ku nool uu ka mid yahay sheekheena weyn ama qaari'eena weyn sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi xafidahu llahu waracaahu ayaa halkaas ayaa saldhig u ah oo halkaas uu degan yahay saa darteed marka anin meesha sidaas ayaan ku raacay waayahay macalin ciise waxaan ku jirnaa gabagabadii gunaanadkii barnaamijkeenii ahaa nolosha macalin ciise marka ma rabnaa muuqaal ku dheeraano su-aashii ugu dambeysay aan ku weydiinaa waxay tahay quraadii hore iyo quraada maanta yaa taageertaa qaari aniga aan daneeyo waxaa la yidhahdaa sheekh saalix buukhaadir ayaa la yidhahdaa sheekha koowaad sheekha labaadne waxaa la yidhahdaa sheekh idriis abakar waa qaari labaad labada qaari oo aadka u daneeyo oo mar walba sawdkooda aan ku cilcishto waxa weeye waa sheekh saalix abukhaadir iyo weliba sheekh idriis abakar labadaas sheekh ayaan aad iyo aad u xiiseeyaa inaan mar walba codkooda aan dhageysto waayahay macalin maadaama aan gabagabadii muuqaalkeena aan joogno daawadayaasha maxaa leedahay daawadayaasha waxaan leeyahay insha allahu tacaala waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan horta aad noola socotaan mar walba aad noo dhiirigelisaan aniga youtuber ayaan ahay oo youtube diin ayaan leeyahay wiilkan ida muuqdane yaxyaheenna ayaa la yidhaahdaa waa qofka kaliya igu dhiirigeliyay inaan social media kusoo biiro alxamdulilah wax badanna waa ka faa'iiday wax badan ayaan ka faa'iiday wax badanna dadka waa u faa'iiday alxamdulillah ilaaha ku mahadsan ilaahay subxaana watacaala asagana miisaankiisa xasanaadka allah u saaro intii ugu dhiirigeliyey oo macnaha uu igu garab siiyey ilaahay subxaana watacaala ilaahay kama hawaabayo ilaahay miisaankiisa xasanaadka allah u saaro ayaan leeyahay marka waxaan oran lahaa dadyowga isticmaalo social media ama ha ahaadeen ama daawadayaal ha noqdeen ama dad kaloo macnaha youtuber ha noqdeen ama daawadayaal ila daawadayaal soo maha marka youtubers ha noqdeen tiktokers ha noqdeen dhammaan qaybaha kala duwan ee social media instagram ha noqdo snapchat ha noqdo waa badin soo maha marka waxa weeye waa nicmo ilaahay subxana watacaala nagu manadeystay yaan si qaldan loo isticmaalin leeyahay si qaldan yaa loo isticmaalin waayo nicmada haddii si qaldan oo loo isticmaalo waxa weeye nicmada waa zuulaysaa marka waxaan dhihi lahaa oo dadka na daawanayo iyo asxaabteena dhammaan waxaan dhihi lahaa social mediaha sida positive-ka ah ugu wanaagsan ha loo daawado oo ha loo isticmaalo muuqaalo fiican oo wanaagsan oo positive ha la soo dhigo negative-ka laga daayo commentiska markaad qoraysaan commenti oo wax ku ool ah hal qoro commenti ku dhigliyaal ha noqonina commenti ku dhigliyaal ha noqonina waayo waari maysa war ka hero waxa kelimadaas aad qortay ama walaalkaaga aad caysay waxaad arkaysaa waxaa dhacaysaa qofaa quraan akhrinaya dislike alla saar dislike maxay tahay dislike ma mudan yahay quraan uu akhriyay dislike ma jecel quraanka ma jecel ma ka wada hadduusan garanayn like iyo dislike maya dadka weydii waxaa leedahay tee like tee dislike ah marka qof dhamo quraan akhriyay oo ilaahay kalaamkiisa akhriyay oo macnaha aayadaha ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay kalaamkiisa akhrinayo meeshii aad wax kale hadaad u tari karin qusul bahii loo galaa qusul bahii loo galaa like ta kaliya ku caawi dislike maxaa kala doonaya quraan uu akhri be kalaamka ilaahay uu akhri soo ma marka saas sax ma ah marka in dislike oo macnaha qof quraan akhri dislike oo macnaha looga jawaabo ma istaahilo marka walaalayaal youtube channelkeedina insha Allah ta'ala waad soo booqan kartaan macalin ciise Sudaysi ayaa ku qoran ii sheeg dhammaan tiktok ana kulli aniga waxaan u isticmaalaa dhanka positive ka ayaan u isticmaalaa muuqaalo oo goos ah oo ka kooban ayaan soo dhigaa oo diini ah iyo wacyigelin ah yaan is oran macalinka waa macallin dugsi qur'aan ee tiktok muxuu ka doonayaan is oran waxa weeye dhanka wanaagsan iyo weyga ugu wanaagsan ayaan u isticmaalaa si aan dadka aan ugu faa'iideeyo ila waayo dadka ummadda Soomaaliyeed waxay kula nool yihiin daafaha caalamka shanta qaaradood ay kula nool yihiin suuragal ma tahay marka anoo dugsigayga ama gurigeyga dhex fadhiyo أنا سوشيال ميديا استعمالين أو يوتيوب استعمالين أو فيسبوك استعمالين أو تيك توك استعمالين عد كذا مجارة وميت ميكروفونكم محلو سمايا إن عدك أوباهي سماعة سيدا سوكالة سيدا ميكروفونكم عدك أوباهي مسايد ميكروفون له مسايد ميكروفون الآن سيدا يكل دويهن أيو سوشيال ميديا هنا أو سبدل كاسوكان سبدل إن أوقفك كلمة دي سي عدكيس إنه مال فوق إنه جالسي
qofka daaciga ah qof dadna waxay u isticmaalaan dhanka wanaagsan dadna waxay u isticmaalaan dhanka xun soo maaha anaga marka aniga si gaar ahaan aniga si qaas ahaan waxaan u isticmaalaa dhanka positive ama dhanka wanaagga ayaan u isticmaalaa youtube-keena aad waa booqan kartiin haddii marka ay sheeg waxaa la ishaa macalin aliya soo maaha youtube-keeda waa booqan kartiin waxa aan soo dhigo ishaa macalin ah idinkaa markaati ka noqon karo gala macalin ciise sudaysi ku qoran dhammaan janaladeyda ama ii sheeg baraheyda oo dhan aan ku leeyahay social mediaha isku magac ayaa ku qoran macalin ciise sudaysi ayaa ku qoran dhammaantiin marka waa booqan kartiin si marka aad ii sheeg aad ugu bogsatiin ama ii sheeg aad ugu qanacdaan waxa aan sheegaya inay sax yihiin inay qalad yihiin si aad u ogaataan waxa weeye baraheyga oo dhan hal magac ayaa ku wada qoran waana ku mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran aad u mahadsantahay macalin sudaysi kaasina wuxuu ahaa macalin sudaysi oo ah tiktoker instagramer youtuber sidoo kale waxaa idin soo dhigi doonaa bin aan ku qaban doonaa youtube-kiisa sidoo kale qaybta description-kan waxaa idin soo dhigi doonaa instagram-kiisa tiktok-kiisa waa macalin shacab badan iyo page facebook-na wuu leeyahay waa macalin shacab badan ka kasbaday dhanka socialka sidoo kale dhiirigeliya adinkana daawadayaasha asxaabta nagu xiran waxaan leeyahay caawo meesha hala gaarsiiyo ku dhawaad 500 hala gaarsiiyo ama 1000 hala gaarsiiyo marna muuqaal ku dheeraano si kastaba ahaatee ku mahadsan daawashada muuqaalkan intaan muuqaalka kulmin waxaan idin tagnaa sidaas iyo nabadgelyo